musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee u ciidan jiray Faysal Cali Waraabe iyo ku-xigeenka musharaxa madaxweynaha xisbigaasi Axmed Muuse Ebiyan ayaa maanta gaaray degmada Salaxley ee gobolka Maroodijeex. musharaxiinta xisbiga u ciido habeenkii xalay u hoyday degmada Balligubadle xarunta gobolka Hawd Saakar la hadlay taageerayaasha xisbigaasi ee gobolkaasi ayaa baarakowdi iyo barkii duhurnimo gaaray degmada Salaxley ee gobolka Maroodijeex. waxa galbeedka degmadaasi ku soo dhaweeyay taageerayaasha xisbigaasi ee degmada Salaxley kuwaasi oo ku dhawaaqayay halku dhigi ay ku taageersan yihiin xisbiga mucaaradka u ciidan isla markaasna siitay calanka xisbigaasi iyo boorar musharaxiinta xisbigaasi ay ku sawiran yihiin. markii wafdigu gaareen degmada Salaxley isla markaasna si aad loogu soo dhaweeyay waxaa loo galbiyay madal loogu talagalay inay kula hadlaan taageerayaasha xisbiga u ciidan waxaana halkaasi gabayo ay ku soo bandhigayaan shucuurta iyo taageerada u hayaan xisbiga mucaaradka u ciidan ku soo bandhigay qaar kamid ah taageerayaasha xisbiga u ciidan degmada Salaxley. xusbiyadu markaynayaadu wadordeen allu aamino yuuq waydiina waqti intaasi kadib waxaa hadalka qaatay xildhibaan xasan maxamed hugur oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Salaxley iyo maxamuud maxamed shube oo kamid ah odayaasha degmada Salaxley waxaana ay sheegeen in ay ballan qaadayaan in ay u codayn doonaan isla markaana taageeri doonaan xisbiga mucaaradka ee wicid. walaalahay waxaan diin sheegayaa in aan Faysal degmada Salaxley cidna kula tartamahayn sababtoo ah waxaynu ognahay xukuumadihii hore sida kulmiye degmada Salaxley maxay u qabteen waxyaabay u ballan qaaday waxa kamid ah dhakhtarka weyn oo ay inoo dhiseen ururka gaaroodi waxay naga dhinaaday dayrkii madaxweynaha Soomaaliya intuu soo maray uu waxaan dhagax dhigayaa dayrkeeni maanta waa ka qabyada ah oo dooranayna Faysal Cali Waraabe ansaar baan waanu helayaa wuu samray horuu ugu samray nafsiga maanta wax siinaya. injineer Faysal Cali Waraabe musharaxa madaxweynaha xisbigaasi iyo ku-xigeenka musharaxa madaxweynaha xisbigaasi Axmed Muuse Ebiyan iyaguna halkaasi ka hadlaya si weyn ugu mahadceliyay taageerayaasha xisbiga u ciid ee degmada Salaxley ee gobolka Maroodijeex waxaana ka warrameen waxyaabaha xisbiga u ciid uu dalka ku hagi doono hadiiba talada wadanka ku guuleysto. Faysal hadda soo saartaan madaxweynaha soo saarteen waana magaaladiisii waxa uu idin qabanayana horaa looga maamaanina korkiisa biyo kama hagrado intaasaa ku filan uma baahna inuu idin sheego waxaasaan idin qabanaya kana idin qabanaya xalay waxaanu hoyanay Balligubadle maanta Salaxley baanu joognaa laba magaalo isku dhow walaalo ah aad bay noo soo dhaweeyeen insha Allah taala waxaan doonaynaa inaan biyaha qabanno oo dhibac kasta oo meesheeda ay ku hadhaan doonaynaa insha Allah taala oo ni taayirka raacine ay meesheeda ku nasataan doona biyaha waxaan doonaa insha Allah taala inaan qof dambe reer Soomaaliland aanu taayirka ka cabin biyo ee biyo nadiif ah helaan doonaa insha Allah taala qofka hadda cilmiga bartid caafimaad bartid uu ka foofiya waxaan doonaa 15% miisaaniyada inaan gelinaan doonaa insha Allah caafimaadka waxaan doonaa inaan sameeyno ciidan wareega oo dhaqaatiira iyo kuwa xoolaha ah oo soo baara xoolaheena iyo dadkeena miyiga jooga matiiba bay qaadeen ma cudur baqaan ma gaasri qaadi maayaane magaaja haysa aan soo baarno insha Allah taala oo qofkii aad u xanuunsanaya magaalooyinka kala keenaan doona insha Allah taala walaalayaal waxaan sameeynaa kabayaashii waxaan doonaynaa wadooyinkeena dalkeena oo dhan isku xidhno 10 sano gudaheeda waad aragteeno reer qori wada ma dhisi karo wadadii waa Balligubadle iyo tii Salaxley waa kuwaas laba way curyaameen laana umadu haday dhaqaaleysan ma dhisana la wareegna wadooyinka dhisna insha Allah taala hasaashanina talada fariina ka bixin saad u soo baxdeen codka isugu waaniya guri xaafad family codeeya maalinta soo baxa xisbi